محمد عبد الله فرماجو وكقب قلي الشركة أن عادي جهين دلالك كوبه بي ururka iskaashiga islaamka ayaa qodbadu ka jeediyay waxa uu kaga hadlay arinta Qudus iyo go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan in Qudus ay tahay caasimadda Israa'iil. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Mareykanku uu ahaa hogaamiyaha wada hadallada Falastiin iyo Israa'iil isla markaana loo baahan yahay in doorkaas mar kale uu qaato si gobolku nabad u noqdo. The United States needs to continue its role as a peace broker. dawladda Mareykanku waxay u baahan tahay inay sii wado dadaalkeeda nabadeynta ee bariga dhexe ee Israa'iil iyo Falastiin si labada dal xal u gaaraan in doorkaas uu sii wado si loo hubiyo hanaanka wada hadalka nabadda iyo nabadgelyada gobolka. On the part of international community, we need to double our effort in finding lasting solution for peace in the Middle East. Orta Doğu'da barışa kalıcı bir çözüm için hepimiz çalışmalıyız. Bu konuda zorluklar var tabii. Madaxweynaha ayaa kulamo kula qaatay madax kala duwan goobta shirka uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo madaxweynaha Suudaan. gabagabadii shirka waxaa saxaafadda si wada jira ula hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, madaxweynaha Falastiin Mahmoud Abbas iyo xogayaha ururka iskaashiga islaamka waxaana isla qireen muhiimadda Qudus u leedahay dunida muslimka. Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.